dowladda dalka Shiinaha ayaa sheegtay in gobolka Wuhan ay ka dhisayso 19 isbitaal oo lagu dabiibi doono dadka uu soo ridanayo cudurka coronavirus. waxay kaloo sheegtay in isbitaaladaas loo dhammaystirayo agabka ay u baahan yihiin ee wax looga qabanayo cudurkaasi laguna diyaarinayo 30,000 oo sariirood. gobolka Wuhan ayaa waxaa si ku meel gaar ah isbitaalo looga dhigay 13 goobood oo ay yeelaan 13,348 sariirood, kuwaas oo 9,313 ka mid ah la seexiyo dadka ay halistoodu yartahay. goobahaas ayaa waxaa ku jira shaleemooyin, tiyaataro iyo goobo lagu cayaaro. mid ka mid ah isbitaalada cusub ee la dhisay ayaa durba la dhammaystiray, waxaana yaala 3,690 sariirood. isbitaalkan oo loo bixiyay Rihani Hospital waxa uu ku fadhiyaa dhul baaxadiisu ay la eg tahay 54,000 oo mitir oo laba jibaaran, wuxuuna leeyahay qaboojiyayaal, qolalka lagu mayrto, suuli dhaqdhaqaaqa, maktabad, goob aflaanta lagu daawado, makhaayado iyo goobo lagu madadaasho. Rihani Hospital ayaa waxaa ka howlgelaya 72 kooxood oo howlwadeeno caafimaad ah, kuwaas oo laga kala keenay dalka Shiinaha oo dhan, waxaana loogu talagalay in adeeg caafimaad oo dhammaystiran ay u fidiyaan dadka uu soo ridanayo cudurka coronavirus. guud ahaan gobolada dalka Shiinaha ay ka socdaan howlaha gurmadka cudurka coronavirus ayaa waxaa ka howlgelaya xirfadlayaal caafimaad oo tiradoodu ay ka badan tahay 32,600 oo qof.